waxaan maanta aan si rasmi ah u booqnay xafiiska garsoorka maxkamadda gobolka Togdheer waxaan halkaasi aan u tagnay gudoomiyaha qaybta maxkamadda Raafaanka wuxuu si rasmi ah nooga warramay qaabka ay maxkamaddu u shaqeyso iyo waliba sidoo kale systemka ay ula falgalayaan ololahan muddooyinkii dambe ay wadeen ilaamaha kala duwan ee ammaanka gaar ahaan booliska ee si rasmi ah looga dagaalamay maandooriyaha waxaanu sheegay in qayb weyn maxkamaddu Raafaanka ee gobolka Togdheer ay si rasmi ah geestooda uga qayb qaateen isla markaana howlgalkaasi ay wali sii wadaan aad iyo aad baad mahadsantihiin booqashada aad noogu timaadeen xarunta garsoorka ee gobolka Togdheer magaalada Buuhoodle oo aynu hadda ku sugannahay xafiiska maxkamadda Rafcaanka waxaan leenahay soo dhawaada ثانيا haddaan warbixin yaro kooban aan ka bixiyo shaqadan aan hayne aan ku jiro shaqada garsoorka guud ahaan gobolka uu shaqeeyaa shaqadiisuna si fiican bay u active garaysan tahay maxkamaddu waxay ka kooban yihiin laba xafiiska maxkamadda Rafcaanka oo hadda aynu ku sugannahay iyo xafiiska maxkamadda darajada koobaad maxkamadda darajada koobaad marka la leeyahay garsoorku maxkamaduhu sidooda waa 3 darajo weeye darajada koobaad iyo darajada labaad oo Rafcaanka ah iyo darajada saddexaad oo maxkamadda sare ah oo iyadu ku taala caasimadda state-ka marka maxkamadda darajada koobaad waxay isu saaran tahay oo ka kooban tahay maxkamaddii gobolka iyo maxkamaddii degmada waxay gashaa kiisaska ay ikhtisaaska u leedahay maxkamadda degmadu iyo kiisaska maxkamadda gobolka ikhtisaaska u leeyahay labadaba maxkamadda darajada koobaad waa maxkamadda darajada koobaad baa wada gasha maxkamadda Rafcaanku waajibaadka ay u haysaa waxa weeye waajibaadka ugu weyn horta marka hore maxkamadda Rafcaanku waxa weeye waa maxkamatul istinaaf weeye ama ambiilka weeye waajibaadkeeda koobaad waxa weeye kiisaska ka soo gudba maxkamadda darajada koobaad ee xukunkeeda lagu qanci waayo dadka ambiilka qaata ama kiiskaas ciqaab ha noqdo ama madani ha noqdee kiisaska maxkamadda darajada koobaad ka soo gudba ayaa waxay maxkamadda Rafcaanku ay awood u leedahay inay qaado oo dib u eegto oo yar xukun ka soo saarto waajibaadkeeda koobaad ka weeye waxa kale oo maxkamadda Rafcaanku ay awood u leedahay kiisaska ku saabsan xayabaha idaariga ah oo matalan hadii maamulka gobolka heer gobol ama heer degmo ay ka dhex dhacdo maarta isqabad uu ka dhex dhaco waxa ka garnaqda maxkamadda Rafcaanka waxa kale oo jirta markan gobolkan aynu eegno jeel weyn kuma yaalo gobolkan saa daraadeed maxaabiista la xukumo ee xukunku ku dhaco waxaa sharcigu u dhigayaa in maxbuuska in la geeyo xabsi rasmi ah oo ciidanka ay jeesha uu joogo oo ka hawlgalo ciidanka asluubta uu ka hawlgalo kana waxa ugu dhow lascaanood baa markaa maxkamista loo qaadaa maxkamadda Rafcaanku markaa maadaama iyadu ay awood u leedahay inay gobolka kale la xidhiidho maxkamadda Rafcaanku warqad bay raacisaa warqadda maxkamadda sareena og lagu siinayo iyo xeeraalinta guud laguna socodsiinayo taliyaha xabsiga saasa maxaabiista lagu gudbiyaa lagu qaadaa marka waajibaadka maxkamadda Rafcaanku kaas weeye maxkamaduhu marka duruufaha ku shaqeeyaan waxa weeye runtii duruufo iska adag baa lagu shaqeeyaa shaqaduna si fiican bay u socotaa oo active garaysan shaqada kiisaska inta badan yimaada hadda kiisaska ciqaabta maxkamadaha soo gala gobolkan waxay u badan yihiin kiisaskan ku saabsan maandooriyaha oo bilihii u dambeeyay xamlad lagu qaaday magaranaysa iyo olole la dagaalanka maandooriyaha
labadii bilood u dambeeyay waxaa la maxkamadda soo gashay ilaa inta u dhaxaysa 50 ilaa 60 kiis inta u dhaxaysa dhammaan oo maandooriyaha ah kaliya maandooriyaha marka kiisaska kale lagu darin marka waxa weeye maxkamadahu shaqadoodu si fiican bay u socotaa maxkamadda rafcaankuna shaqadeedana saasay u wadataa maxkamadda darajada koowaad bay kiisasku inta badan ku dhamaadaan oo ma badna kiisaska ambiilka laga soo qaato annaga waxa weeye waxaan wax ku xukunaa shariicada islaamka iyo de qawaaniinta waddanka u yaala oo runtii wixii ka waafaqsan shariicada aanu ka qaadano ijraa'aadka iyo procedure-ka waxa weeye qawaaniinta waddanka u yaala un baad anagu maxkamadda dawli ah weeye marka sidaa daraaddeed maxkamaddu waxaa waajib ku ah inay u hoggaansanaadaan qawaaniinta u yaala state-ka oo magaranaysa sharciga iyo dastuurka u yaala state-ka inay ku shaqayso waa shay maartay dastuuri ah weeye waxaana si toosa barnaamijyada ugala socon doontaan wakaaladda wararka ee midnimo Soomaali TV anigoo Xuseen Xasan Cadaan oo idin soo warrami doona